xumaanta aad samayso adiga ayay kula joogtaa, wanaaguna adiga ayuu kugu soo laabtaa. Waxaa jiri jirtay haweeney reerkeeda ayay subax kasta u samaysaa quraac. quraacda waxa ay ka dhigtaa rooti. Markay rootigaasi qasayso ayay ku dartaa wax dheeraad ah si ay markaasi dadka wadada maraya ee martida ay u cunaan. xabad rooti ah ayay maalin kasta waxay ku ridaa kolay ay surto geed ku dhex yaala wadada. waxaa halkaasi soo mara nin geedo qorow ah. subax alla keena markay quraacda dhammayso ayuu meesha soo maraa. wuxuu halkaasi kala baxaa xabadka rootiga ay kolaygaasi ku rido. marka uu qaadanaya ayuu yiraahdaa, xumaanta aad samayso adiga ayay kula joogtaa, wanaaguna adiga ayuu kugu soo laabtaa. maalin walba oo samayso sidaa ayuu yiraahdaa, xitaa ma yiraahdo mahadsanid. haweeneydii way ka carootay. ninkan maalin walba rootiga ay dubayso isagu qaadanaya, haddana aan mahadsanid dhehinin. maalintii dambe ayaa iyadoo caraysan qooshtay rootigii. markaa kadib rootigii dubtay ayay waxa ay soo marisay xabadkii rootiga ahaa ay kolayga ku ridi jirtay. markii koligii gelays leedahay ayay jaraysay oo cabsi baahsan ayaa martay. waa ay ka bixisay oo waa ay tuurtay kii sunta ay marisay ay ugu talagashay ninkaanu inuu cuno. waxa ay soo qaadatay xabad fiican, meesha ayay ku riday wayna ka tagtay. sida caadada ahayd uu soo maray hadalkiisii ayuuna yiri oo ahaa, xumaanta aad samayso adiga ayay kula joogtaa, wanaagana adiga ayuu kugu soo laabtaa. wuu ka tegay oo xabadkiisi rootiga ahaa ayuu qaatay. waxaa jira wiil ay dhashay haweeneydaasi oo ka maqnaa oo ay weysaneed jaan iyo ciri meesha u dhigay. ninkii asagoo socda ayuu u yimid wiilkii oo baahi meel la yaala. rootiga ayuu siiyey. wuxuuna u sheegay markuu rootiga siinayay, maalin kasta haweeney ayaa rootigan dubta ku ridaa kolay geed ku dhex yaala wadada. waan kala soo baxaa oo maalin kasta ayaa cunaa, balse maanta adiga ayaa il daran oo baahi ba-aan ku haysaaye. xabadkan rootiga cunayo anigu beri ayaan cuni doonaa. habeenkii dambe ayaa waxaa albaabka soo gargaraacay wiilkii gurigii haweeneydu ay lahayd. albaabka markay ka furtay waa wiilkeedii oo baahi la il daran. markii ay guriga u soo galay u sheegay baahida soo qabatay iyo wadanka uu ka yimid iyo wadada uu soo jaray dhirkeeda ay lahayd, wuxuu ku yiri, hooyo waxa ay badbaadeen ninkeeda qorow ah. wuxuu ii sheegay haweeney inay maalin kasta rooti ay dubto, markaasna oo xabada rootiga ah oo kolayga ay ku rido geedka ay dhex surto dadka wadada maray ugu talagasho isaga cuno. wuxuuna igu yiri, maanta adiga baahan ee cun. waxay soo xasuusatay hadalkii uu dhihi jiray ahaa, xumaanta aad samayso adiga ayay kula joogtaa, wanaaguna adiga ayuu kugu soo laabtaa. waxay xasuusatay xabadkii rootiga ahaa. haddii ay kolayga ku ridi lahayd inuu wiilkeedu cuni lahaa, halkaasna uu ku dhiman lahaa. ujeedku sheekadu adigoo wanaag samay kara xumaan ha samaynin. waad mahadsantihiin saaxiibayaal.